بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم إن شاء الله ما توحن جونا قبري وحنا إيماني ولا الجريودي إلى سبحانه وتعالى هو نحرسته إن كيسي دت كيسنا صبري إيمان الله كسيو إن مناسبة دا أما أن هذا الكوسو بيو أنا ما تقبل جوجا وحويان وحكى لما أهن وحبنا بسؤال نقول بضطي سؤال شاس وربنا إن شاء الله تعالى إن نقول فائدة سنة ما أنت إن قوها بونت هاي وقت اللي جواب لها إن كمؤسسة أهان مؤسسة كردستان دلكن هولن أمستردام اللي رادو إيروبيس إسلامي تش أوتفارد فونس ومعرفتي لو طلق لي قفك مسلم كاهي نولي مدة صومالية وبديه مركب كيريودو أما إن دلكيسي لو عليو أما إن هالكن نذر لو آسو أيا سؤال أدو بدته سؤال كسابسن مصيبة بريها صعوتها يعود كان يرادو كورونا فيروس dadku waxay aad isku weydiinayaan haddii qofku u geeriyoodo cudurkan coronavirus waa lagu waayaa lama mayri karo lama waxayn karo arrimo noocaas ah xaqiiqatan su'aashaasna aad bay noogu badatay mana garan karno su'aashaas oo kale iyo sidee ku imaan karto inta badan laakiin se waxaad u madaynaysaa inaad xoogaa dadku ay ka babadinayaan insha Allah ta'ala anoo maanta uga faa'iideysanayo su'aashaas iyada ah waxaan dadka walaalaha u sheegayaa qofka muslimka ee geeriyooda ka mu'assasa ahaan hadduu cudurka xitaa coronavirus u geeriyoodo waxaa loo diyaariyay insha Allah ta'ala meeshii lagu meerayay iyo dadkii meeri lahaa iyo qalabkii lagu meeri lahaa iyo wax kasta waana la meerayaa qof lagu leeyahay ma jirto warkaasina war sal iyo raatoona lama ahan insha Allah ta'ala ummadda Soomaaliyeed walaalaheena degan dalkan Holland aad iyo aad mar walba su'aasha ah waxa lagu leeyahay isweydiinayo wuxuu sheegaynaa warkaas inuu war saxsan ahayn ilaahina laga cabsado warkaasna la iska daayo insha Allah ta'ala qof kasta muslim ahi xaq buu leeyahay haddii uu geeriyoodana maaragtay xaqiisii baa la marsiinayo ah in la meero in la karfano in maaragtay qabrigiisana la geliyo sida sunnada waafaqsan insha Allah ta'ala iyadoo markaasna aan laga tegaynin sharciga iyo reekhalka degsan oo dalka iyo dawladda waddankan ay soo dejisay oo ah dadku inay under half meter ama 1 mitir iyo bar inay kala fogaadaan inaysan 30 qofood ka badan qabriga aysan iimaan karin dadku inay kala fog yihiin waxaasoo sharciga iyadoo la sameynayo haddana laakiin xuquuqda uu qofku meydka leeyahay oo ah in la mayro in la karfano intaba waa la sameynaya qof la gulayana ma jiro wajazaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh